I think we do a quick picture. Sure. All right? Here's for you. Thank you. There you go. Thank you. Perfect. Thank you so much. Thank you. Thank you. Good evening, dear Excellencies, ladies and gentlemen. I'm honored to be here this afternoon at this Concordian Annual Summit. I'm also honored to receive Concordian prestigious Leadership Award for 2019. mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf ii ah galabta inaan idinla joogo shirweynaha sanadlaha ah ee Concordia. waxaa sidoo kale sharaf ii ah inaan gudoobo abaalmarinta hogaamineed ee Concordia sanadkan 2019. waxaan si gaar ah hogaanka Concordia uga mahad celinayaa inay aqoonsadeen dadaalka joogtada ah ee madaxda Geeska Afrika ugu jiraan sidii gobolka nabad loogu soo dabaali lahaa. khilaafka iyo dagaalku waxay siyaabo kala duwan u siyaadiyeen saboolnimada ka jirta gobolka, sida inay dhaawac weyn u geysteen kaabayaasha dhaqaale, hay-adaha iyo wax soo saarka, burburinta hantida, qoqobka iyo kala daadashada mujtamaca iyo shabakadaha bulsho, barakac qasab ah iyo shaqo la'aan iyo sicir barar joogto ah. waxaa intaasi dheer khayraadka oo yar oo ay weheliso koror dadweyne oo xawli ah. saboolnimada iyo horumar la'aanta ayaa sidoo kale ah qodobada qaybta ka qaata xasilooni la'aanta gobolka. nabaddu waxa ay lagama maarmaan u tahay in la helo kobac waara, waxaana sidoo kale ay ka turjumaysaa heshiis ama wada noolaansho bulsho, deganaan iyo barwaaqo. I'm honored to report that a wind of hope and peace is blowing in the Horn of Africa after several decades of insecurity. However, maintaining peace requires trust building, compromise, concession, understanding and commitment from all sides involved in the conflicts. waxaa sharaf ii ah inaan idinla wadaago in Geeska Afrika hadda ay ka jirto saasaan rajo iyo nabadeed kadib sanado badan oo nabadgelyo la'aan ah. si kastaba in nabadda la joogteeyo waxa ay u baahan tahay kalsooni dhis, isu tanaasul, wadajir, faham iyo inay taasi ka go'an tahay dhammaanba dhinacyada qaybta ka ah khilaafka. heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee u dhexeeyay saddexdeenna waddan waxa uu xoogga saaray isdhexgalka dhaqaale, waxaana mahad iska leh ra'iisul wasaaraha Itoobiya mudane Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Eritrea mudane Isaias Afwerki. intaasi marka laga yimaado waxaa weli jira caqabado u baahan in lagaga gudbo taageero dhanka dhaqaalaha ah iyo mid siyaasadda ah. ugu dambayntii waxaan jeclahay inaan Concordia ku bogaadiyo inay isku keentay dhammaanba bulshooyinka caalamka. waxaan ugu mahad celinayaa abaalmarinta hogaamineed ay ugu sharfeen. fadlan halkaas ka sii wada hawsha qiimaha leh ee aad haysaan. Finally, I would like to compliment Concordia for bringing together the entire world communities, and thank you very much for giving me this leadership award. Please keep up the good work, and I thank you.